hogaamiyaha walaalayaal waxaan rabayo kale inaan halkan ka sheego sidaan wada ogtiin walaal markii ugu horeysay uu dalkeennu ku jira khatar siyaasadeed oo jiritaankeenna calaamad su'aal saaraysa ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in haddii aanu nahay xisbiyada dalka ka jira aanan ogolaan karin in dalkeenna si dhab yar xornimadiisa iyo qarannimadiisa iyo madax bannaanidiisa looga tanaasulo shacbiga Soomaaliyeed waxaanu rabnaa inay garab istaagaan in laga hor istaago qof madaxa oo maryimi oo madaxweynuhu hadda uu ka yahay cid aan farta ku fiiqayno in sharciga iyo dastuurkan qaranka loogu tunto si aan horey loo arag marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay annaga haddaan nahay xildhibaanadii qaranka ma aqbali karno ku tumashada dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala idinkana waxaan idinka rabnaa inaad taageero muujisaan waxaan idinka rabnaa inaad diidaan in dalkan meel kale loo wareejiyo oo calanka buluuga ah aynu hoos fadhino dalkeenu horumar ma gaarin oo waynu ognahay oo uu inoo jajaban yahay laakiin madax bannaanideena marna kama aynaan gelin gorgorta 85 sannadood ayaa gumaystayna haystay 85 sannadoodba waxaynu ku jirnay iska caabin waxaynu soo marnay nidaam dictatorship oo carjuuqya odhan karayna yidhi waxaynu kaga soo gudubnay oo aynu nidaamkeenu ku hor istaagnay caburintiisii iyo xumaantiisii iyo foolxumadiisii cod wada jira oo aan qabiil ahayn ee qarannimo ku salaysan oo min daraf ilaa daraf dalka looga hor yimi waxaynu diidnay in dalkan warloodhe iyo dad aan u qalmin iyo al-shabaab iyo argagixiso ay noogu cagajuglayso oo aynu kaga soo baxnay maantana wuxuu taagan yahay dalku marxalad hore aan loo arag oo dalkeenna qarannimadiisii la raba in meel kale loo wareejiyo waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay arrintan garab istaagaan inay nagu garab istaagaan badbaadada qarannimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed gudoomiyaha mar labaad iyo mar saddexaad ba hogaamiyaha waa soo dhaweynaynaa bacadka waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u soo celiyo shacabka isu soo baxay iyadoo bacadkaasi jirto waxay tusaysaa taasi inaan mabda ku dagaalamaysaan ee aydaan ahayn dad sida dadka qaarkii wax yar lagu soo shubtay oo halkan u yimi shirimo yar yar oo moobilka loogu soo shubay waan idin mahad celinaa garabkiina naga eega xildhibaanka waa mahadsan yahay maxaan leenahay dictatorship ha dhaco dimuqraadiyadda kor ha noqoto haddana waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan cilmi haye بسم الله الرحمن الرحيم دمان تاgeerayaasha xisbiga waxaan idin leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa idinka mahad celinaynaa bacadkaad isugu soo baxdeen anigoo ku hadlaya halkan xisbiyada ay ka mid yihiin xildhibaanada qaranku waxaan halkan isugu niminaan soo dhaweyno gudoomiyaha xisbiga wadajir mudane cabdiraxmaan oo muddo dalka ka maqnaa waxaan leenahay ku soo noqo gurigaagii si nabada waddanku wuxuu u baahan yahay in xisbiyo sidaa ay isugu soo banbaxdeen in la isugu soo banbaxo qof kastana afkaartiisa si xor ah oo xorriyada uga hadlo iyadoo waqtigu aad u kulul yahay una gaaban yahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka mahad celinayaa sidaad noo soo dhaweyseen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada xisbiyada kale ka socda ee halkan nagala soo qayb galay mudane cabdiraxmaan waxaan ku leenahay ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba magaalo madaxda dalka Soomaaliyeed Muqdisho waxaan mahad gaar ah u celinaynaa xisbiyada nagala soo qayb galay banaanbaxan xisbiyada nagala soo qayb galay soo dhaweynta xisbiyada nagala soo qayb galay dimuqraadiyadda inay jirto waxaan si gooni u sheegaynaa xisbiyada UPD ha jiro UPD xildhibaanadooda way dadaaleen ha jiraan xildhibaanada himilo ha jiraan ayagana waa soo dhaweynaynaa xildhibaanada xisbiyada kale dhammaan xisbiga ilays asagana ha jiro xisbiga wadajir ha jiro dhammaan waa soo dhaweynaynaa wayna wada matalaan waxaan halkan ku soo dhaweynayaa inaan siyaasi cabdi barre ayaan siinayaa oo asagana kelimad laba daqiiqo halkan ka jeedi doono soo dhawow xildhibaan hore siyaasi cabdi barre aan soo dhaweyno dhammaantiin gudoomiyaha
xildhibaanada sharafta leh iyo shacabka halkan ku yar waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh iyo dhammaantiin hadal badan uma istaagin waxaan rabaa horta hal jawaab inaan baxsho oo hadda ka horna lagu tilmaamay laakiin dalku kama bixi karo kale talisnimo iyo anaa ayna kama bixi karo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed isma oga in xildhibaanada sharafta ay doorteen xildhibaanna hadday doorteen inuu yiraahdo cilma hadli karto qof ma tilmaamo ma qaadi karo lama xisaabtami karo taas waxa weeye ummadda Soomaaliya ku baaba'day cid ka laga yeeli karana male hay-adaha dawladda waa la xisaabtamaya waxaan kala aad ugu mahadcelinayaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo gartay shaqadiisii oo muddo 2 sano fiirinayay inaan shacabka niyad jabin si loo ilaaliyo qarannimadii iyo dawladda Soomaaliyeed oo aan oran xildhibaanadu waa degdegeen laakiin maanta xildhibaanadu wax badan bay ogaadeen inay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u soo bandhigaan waxa dalka ka socda iyo 8 February 2017 ay noqotay habeen madow aniga Cabdi Bare kama tirsani xisbi siyaasadeed kama tirsani laakiin waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo madax bannaan waxaan aad ugu xumahay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed markii uu bannaanka joogay eedeedo badan uu soo jeedi jiray madaxweynihii dalka Xasan Sheekh Maxamed uu soo jeedi jiray sidaas oo ay tahay cid u jawaabi jirtay iyo cid oran jirtay maxaa tiri midna ma jirin waxaan si aad ugu xumahay madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed shalay wuxuu madaxweynaha ka horreysay ku tilmaami jiray markii lagu tilmaamay asaga inuu dulqaad sameyn waayay inuu carruur yar yar guryahood u dhaco lagu aasay muxuu ahaa habeen madow la aasay ciddii hadashay inuu far ku fiiqo waa ayaan daro taasna laguma tilmaami karo hogaamiye laguma tilmaami karo waxyaabihii lagu eegan jiray markuu tilmaamay raggii tilmaamay khaladaadkiisa aan ka mid ahaa oo siyaasiyiinta Cabdiraxmaan Suur ka mid lahaa xildhibaanada sharafta ka mid lahaa wuxuu ku tilmaamay meel kasta oo siyaasiyiin xanaaqsan buu ku tilmaamay laakiin annagu waan ku bareejeynaayo waxaan hadda leenahay annagu ma xanaaqsanin madaxweynaha hadduu xanaaq ku tagay annagu maan xanaaqsanin laakiin annaguna hadda waxaan ku tilmaamay siyaasiyiin cuqdadaysan maanta laga bilaabo magacaasa loo bixinaya marka taa waa in la wada aad iyo aad u mahadsan waxaan noo socdaa khudbadihii xildhibaanada ay nagula wadaagi lahaayeen dareenkooda waxaan halkan ku soo dhaweynayaa xildhibaan Faarax Sheekh Cabdiqaadir hal soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وقاميها حزبك وذجر مدن عبد الرحمن عبد الشكور وقاميها حزبك مدن كمال صاحب بدر الله بدر قوله برلمانك فدرالك الصوماليات شعب وينها صوماليات هل كان السجون بدي يحلق عن برحدة مركز الرمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u malaynayaa hadal intii munaasab ahayd waa la yiri ujeedada maanta aynu halkan isugu nimaadnay waa inaynu muujinnaa haddaynu nahay shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintiisa in dalkani uu yahay dal xor ah dadka Soomaaliyeedna ay xaq u leeyihiin in ra'yiga siyaasadeed ay qabaan ay u cabiraan sida ay doonayaan bishaan bisheedii kale sanadkii hore ayaan daro aad iyo aad u weyn ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu weeraray madaxda iyo siyaasiyiinta xisbiga wadajir maalintaana waan cambaaraynay haddana waxaanu leenahay maanta waxay daliil u tahay inaanan cidna la caburin karin qofna ra'yigiisa aanan lagu beegsan karin dadka Soomaaliyeedna aanay ogolaan doonin mudane Cabdiraxmaan soo dhawow dadka Soomaaliyeed waxa ay ka sugayaan oo ay kaaga fadhiyaan inaad ugu abaalguddo taageeradii iyo garab istaagga ay kugu sameeyeen marar badan waa isweydiiyeen maqnaashahaaga waa isweydiiyeen dalkani qofkii xabad lagu tuuraba hadduu iska cararayo meeshaan ma aanan soo gaarneen karaamo iyo sharafna ma yeelaneen mana yeelan doono waxaan jeclahay in dhammaanteen aynu fariin dhab ah u dirno dadka doonayo in xabad wax lagu xalliyo inaynu fariin dhab ah u dirno waa laga soo gudbay way soo dhammaatay xilligeedii lama joogo qofna ra'yigiisa laguma caburin karo waxaynu wada leenahay oynu ku wada joognaa waa dalka oynu wada leenahay dastuurka oynu wada leenahay sarreynta sharciga oynu wada leenahay marka taa inaynu dhammaanteen u istaagno difaaceeda
jidka saxdeena aan marno taas ayaa dhammaanteen noo ballana aynu isku ixtiraamno aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaama mahadsantihiin dhammaan waxaa noo socda khudbadihii xildhibaanadu iskuma jiraan waxaan halkan ku xijinayaa xildhibaanada ugu geesisan baarlamaanka ugu aftahansan baarlamaanka soo dhawow xildhibaan sacdiyo soo dhaweeya السلام عليكم دمانتي وين ودا سلام يا dadka qoraxda iskugu yimi gudoomiyaha yaal ku soo dhaweynaya soo dhawow aad iyo ninkan u mahadsantihiin intii la dhihi lahaa waa la yiri aniga waa la ii qariyay ma maleynaya hadalka uu leeyahay hadal badan ma aqaani laakiin waxaan aad iyo aad u taageersanahay intiina Soomaaliya oo dumarka wali aad u badan waxa aad ku soo baxdeen ayaan dareemayaa waxa ku soo baxdeen waxa idinka maqan ayaan naga maqan dadka xildhibaanada idin matalaynay ayaan nahay alle waxaan kaliya rabaa inaan dhaho oo cadeeyo qori iyo caburin haday macno leedahay dagaalna inuu kuma dhaceen qaxootina dibadda kuma noqoneen orda taa waa in meel la gelin madaxa la xasuusnaado dadka dhahaya ma hadli kartiin ama intii wadooyinka hadda ciyaalo la soo saaray masaakiina iyo dumar inta shareer xiran wadada marayo qof kasta waa u jeedaa inay wadada daacad ku soo baxay yihiin idinka wajiyadiina furan yihiin oo magacyadiina watana maanta weydinka hor taagan oo bacadka taagan marka dawladana waxaan leenahay inagoo isku duuba idinka waxa idin bedelna waa annaga waxaan nahay xildhibaanadii waxaan ku raacsanahay oo idin garab istaaganahay qof kasta oo Soomaaliya oo la dabco in la caburiyo waxaan annaga leenahay cid caburin kartaa ma jirto caburina mar hore u dambeysay waxaan leeyahay soo dhawaada waa mahadsantihiin gudoomiyaha dayaan ku wareejinayaa guutaale Allah xildhibaan sacdiyo waa soo dhaweynaynaa على سو دhoweeya xildhibaan kale oo geesiyaasha ku jira xildhibaan khaliif soo dhawow وما تنتهي قدومي قلت لك السلام عليكم صوماليا حرود ورياضة وعربة دقالة هوريك قلها يا حنفريش هنسينا يا قدومي بارلمانكا قبطي موشنكي أنكا كان مدحوينها ما أنت محبوس وكحنا هاينا نادينو أنشاقنا لكن مدحوينه حرايو قدومية بارلمان ويرايو وكحرايو البابدا حلوانا دي سو زيارن كرين وحلا لا يابوا فرينتا aan hayna hadda waa xildhibaano badan in laga soo celiyo madaxtooyada oo ah gurigii uu gudoomiyaha baarlamaanka deganaa hadaba Soomaaliya ogaada xanfareesh waaye wixii soo baxay ku dambeysana nala socda social media iyo telefoonada iyo idaacadaha waan ka hadli doonaa iyo aadan maxaa u soo dhaweynayaa gudoomiyaha hogaamiyaha wadajir waxaan ku joognaa axsaab badan waxaan ka koobanahay ilaa 5 urur xisbi oo siyaasadeed ayaan soo dhaweynaynaa hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur meeshan waxay calaamad u tahay xalay 9 saac 8 saac habeenimo waxa la bilaabay in la soo saaro IDP-yada masaakiinta danta ay ku hayso IDP-yada maanta waxba kama qabno xiriyaha qaxootiga in la tago oo wax la siiyo igu sawiraanahayn waa ku faraxsanahay waa rabnaa laakiin waxaan diidayna waa igu sawir iyo in shilimaadka wax looga bedesho in qoraxdaas lagu dilo
أدينك واحد كجوكتان عاد عيداس مبدأ آدي هذا نوقف فرحسن هاي الرياضة هذا معلي هذا أنا قاعد أكرر ذينا نلا صعدة أنا قاعد أكرر ذينا نلا صعدة هذا ويلشة ميديا أفرط شيء نقصي أنا هوان توبان مسؤولية توضعها هوان توبانو وحن كسر وين يا قتالة آدي على ذي سر وين السلام عليكم سوشيال ميديا كوضع ما ويلشان إذا عداك شغال والله يوروبيا أمريكا جوكتو أو محل هذا لقوا بيجريو أفرط الشيلين أيوة عير قاضنا هي حاجة الله سين ويلشان صلى الله عليه السلام عليكم لما خليفة ما تسيء هاي عندما هل كان سلوك علينا كسر دويو عندما خليف شعب كان وحكومة لنقاضيان إني قدوميها ولا شعب كان ماشي سوق تجي دونان ماشي سوق تجي نسمان هل كيسان نقول تجي حكومة لنقاضي حتى هذا فريش كان وكان قبلني وبرص على وما سنتهي هل كان وحنكون في جنيا اللي وان كدرسن قدي جمالية ده ما تقاني قدي جمالية ده وأنا منك أفرتني لما بيلي أيضا الله بحياة سواق التواي اللي ما كسب حالي هذا تو بلاس تو مدرنا الله قدر ما قواي إنما أنا وحيد وين يصدق كذي كان هالحب بيتيا شو بقول وحيد ما بحكي السلام عليكم ورحمة الله مركور وحسود وين يا وقابيها حسبك wadajir waxaan soo dhaweynayaa dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee ka soo qayb galay maanta soo dhaweynta hogaamiyaha waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka halkan qorraxda jooga ee sida la sheegay dhammaantood si ka bedelan waxa ka socda maanta magaalada halkan ku yimaadeen ra'yigooda xortaa ku yimaadeen aragtidooda ku yimaadeen qorraxdaan u taagan inay muujiyaan mowqifkooda iyo caqligooda iyo garashadooda ilaahay uu siiyey waxa ay la noqotay aad baan u soo dhaweynayaa dhammaantiin waanan ka xumahay runtii inaad kulaylkan joogtaan laakiin dareenkiina quruxda badana halkaan idin keenay isagaan idinkaga mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego baarlamaanka Soomaaliyeed ee annagu aan xubnaha ka nahay muddo 2 sano ku dhow ayaa la fiirinayay in xaaladda dalkan wax ka soo hagaagi karaan shalay iyo daraad iyo tii ka horreysay dhacdooyin midba kale ka xanuun badan tahay ayaa ku socday magaalada Muqdisho amnigii magaalada iyo amnigii guud ahaan dalka qalqal galay waxaad ogtiin in maantay magaalada Muqdisho dadka ku noolaa laba canshuur laga qaadayo oo shalay ay shabaab ka qaadayeen xoolo haddana daacish ugu soo korodhay dawladuna aysan hal abaab canshuur ka qaadin oo aynan ka qaadayso dekada uga qaadato xuquuqdii ay ahayd canshuurtii ay ahayd in suuqyada lagu qaado inay dekada uga qaadato amnigii dalka khatar ku jira muwaadiniintii Soomaaliyeed gacan kale loo dhiibay dadkii baa guryahooda habeen madow lagu weeraray oo kabahooda lagu aasay waxa weeyaan waad ogtiin waxa culays siyaasadeed lagu haayo xorriyadii ra'yiga baabaaday oo maanta qof xasaarada mooyaane qof kale toosan kalimadiisa oosan jeedin karin dalka badbaadin idinka raba haddii la soo saaray mid lacag yar oo maaragtay runtii oo u dhibaataysan yahay looga faa'iideystay ee lagu geeyay mudaharaadyada dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ee magaalada Muqdisho ku nool ee odaga leh ee dhalinyarada leh haweenka leh ay u baahan tahay inay dalkooda iyo dadkooda badbaadsadaan qori qaada idima dhahayno dagaalama idima dhahayno xanuunkay leedahay waa naqaanaa laakiin waa inaad codkiina muujisaan waa inaad kelimadiina u sheegtaan kuwa digtaytarada ah kuwa doonaya dalkan inuu xornimadiisii dib uga laabto inaad runta u sheegtaan waaye sidii xildhibaanadii iga horreeyay u sheegay qof la caburin karaa ma jiro waxaad wax ku tahay waxna ku noqon kartaa waa sharciga iyo qaanuunka hal daqiiqa haddaad dhinac ka martana macnahaagaa dhumaya dadka Soomaaliyeedtoodana qiimo kama yeelanaysa waxaan anaga ku taagannahay wax sharciya waaye mooshinaan ka geynay shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaanuunka war yaalla isagaana go'aan ka gaaraya inaad habeenkii guurayso iyo inaad xariiqa qaxootiga tagtahay waxba kama bedeli karaan mowqifkaas dariiqa saxda ah maraya sharciga waddankan hogaaminaya horaha loo socdo dalkiina badbaadsada ku dhaqaaqa inaad difaacataan cidna yaysan xornimadiina soo faragelin amnigiina cidna ma taaban karo xor baatiin ilaahayba waxaad dhalateen adinkoo xor ah noolaada adinkoo xor ah dalkiina iyo dadkiina difaacaada وما سبي السلام عليكم وما سيا حلبانك محمود دارمنا حلبانك
tuugada soo jeebay tuugada la soo jeebay tuugada dawladda ku jirta ayagoo ka tiiraysan inuu keenan karabna hadda halkan waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan Cabdicaziz soo dhawo xildhibaane ala soo dhawo xildhibaanka ala soo dhawo xildhibaanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka soo dhaweynayaa hogaamiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dhammaan shacabka meeshan isugu soo baxay xildhibaanada sharafta leh iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii hadal murtidiis waxaa yidhi xildhibaanadii iga horreeyey ama mas-uuliyiintii iga horreeyda tiri waxaan ku faraxsanahay in intaasoo ummadu isugu soo timi meeshaan isugu soo baxday soo dhaweynta hogaamiyaha iyo dareenka ay ka qabaan waddankoodu in macnaheed maaragtay ay diyaar u yihiin inaysan ogolaanin in dib dhac uu ku dhaco. runtii waan ka xumahay inaad qorraxda joogtaan annaguna maaragtay aan marba isu bedelayno laakiin dhammaanteen damiirka ayaa meeshana wada keenay insha allah dulqaadkana waan kaga mahad celinaynaa mar kale waxaan leenahay waddanku wuxuu ku socdaa in la soo galo heshiisyo aan la ogeyn waxa lagu soo heshiiyey oo qarsoon runtii wax loo dul qaadan karana ma ahan markii mooshinka laga keenay heshiisyadaasna hoosaa la dhigay muxuu ahay mooshinkii waa loo istaagay sababta waa daba joognaa weli laakiin dhegtu waxay idiin taagnaata haddii la yidhaahdo waddankan siyaadadiisa inaan ka wada shaqaynaan diyaar u nahay ma ogolin caburin iyo muxuu ahaaye laba luuq soo gasho oo maaragtay muxuu ahaaye hadalla aan la ogeyn meel maaragtay ku soo qorta ma ogolin insha allah tacaala waana hor istaagayna haddii la yidhaahdo waxaan leenahay heshiisyada lala soo galo Itoobiya iyo Eritrea ma ahan mid waafaqa oo maaragtay Soomaaliya hadda macnaheedu ay waafaqi karta ma ahan Eritrea iyo Itoobiya labaduba dadkooda way u sheegeen waxay yiraahdeen Soomaaliya idin soo wadnaa inaad ka shaqaysataan oo aan gacanta idin soo gelino laakiin hogaamiyaashana nooma aysan sheegin waxa ay la soo galeen. waxaan leenahay Soomaaliya iyadoo xor ay joogtaa iyadoo xorna waa ay joogi doontaa insha Allah tacaala mana ogolaanayno nin shala boorso keensaday oo boorso yar la yimid inuu waddankan gacanta ka saaro ma ogolaanayno insha Allah tacaala. waxaan leenahay mar kale insha Allah tacaala aan wada socono biidnillaahi tacaala insha Allah wixii soo karnaa waa isla soconaynaa biidnillah. xildhibaanka muxuuna yidhi Soomaaliya saxan la saari maayo saxan dad ajnabiya looma saaraayo Soomaaliya ma ahan wax saxan inta la saaro dal kale loo geynayo laga gadanayo ma ahan. xildhibaana waa mahadsan tahay haddana dadka iskuma jiraan xildhibaanada iskuma jiraan waxaan halkan ka soo dhaweynaynaa xildhibaan la yidhaha qalbi Soomaali qalbigiisu buluug waaye qalbigiisa ma ahan guduud ma ahan qalbigiisa waxaa ku xardhan calanka Soomaaliya ku xardhan waa xildhibaankii u istaagay dhammaan xildhibaanadana waa u istaageen arrintii qalbi dhagax oo ah shakhsi Soomaaliyeed oo si maxaa la cadaalad darro ah oo sharci darro ah loo dhoofiyey ma ogolaan karno shakhsiga iyo karaamada qofka Soomaaliyeed sida qalbi dhagax ama qof kasta oo naga tirsan in loo dhiibo. waxaan soo dhaweynayaa xildhibaan Axmed Macalin Fiqi xildhibaan Axmed qalbi Soomaali soo dhawo ha loo istaago. waa mahadsan yahay Kamaal gudoomiyaha xisbiga wadajir maantay wixii hadal ahaa oo la dhihi lahaa waxaa yidhi xildhibaanada halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa hogaamiyaha xisbiga wadajir saaxiibkeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dalka muddo ku maqnaa oo maqnaanshihiisa aan tabnay wax badan oo xikmada nagala maqnaa laakiin aan rajaynayno markaan xikmad keliya maahana badbaadada dalka inuu yimid marka waa soo dhaweynaynaa hogaamiye soo dhawow tan xigta waxa la yidhaahdo rabitaanka dadka iyo caburinta iyo qasbiddu waxay ka muuqataa sidii xildhibaanada iga horreeyay ay sheegeen wajiyada dadka halkan jooga oo faraxsan oo qorraxdaas ku faraxsan ayagoon waxba la siin laakiin rabitaankooda u yimid iyo kuwa ku suuxaya
daljirka dahsoon inta xalay 8 saac la keenay ee laga qaadayo maanta inta suuxeen gaajo qurac lama siin biyo lama siin ayagoo suuxsan hadba ambalaasku ay qaadayso farqiga u dhaxeeya kaas weeye marka waa maasantiin waxaan rabaa hal kelima kaliya inaan ku soo gunaanado waxaan ka mid ahaa aniga xildhibaanadii madaxweynaha hadda xilka haya ee mooshinka laga geeyey xildhibaanadii wax ka doortaan ka mid ahaa kadib markii hadallo macaan iyo niyad fiican aan ku aragnay markii uu yimid oo la doortay wixii uu sheegtay oo dhan oo uu yidhi waa qabanayaa hal shay kama qaban wixii dastuurku siinaya inuu ixtiraamo oo ahaa dastuurka dalkan yaalla ee dadka Soomaaliyeed ay ku kala dambeeyaan ee ay ku heshiyeenna qodobadiisii min dhinac ilaa dhinac kale uga dhex baxay ku tumasho halkaas markay marayso lama necba madaxweynaha weligiin ha necbaanina waa u turaynaa annaga waxaan leenahay madaxweyne ma sii wadi kartid xilkan waa kugu culus yahay marka waxaa jooga hogaamiyaal kale oo sii wadi kara oo wixii 2 sano naga halaabayna noo toosinayay ha noogu darin 2 sano kale madaxweyne naga joog intaas nooga ekee baan nidhaahno wax kaloo aan nidhi male waxaana ku matalaynay dadkii dhintay ee halkan kilomitir 5 oo daris nala ah 1,000 qofood ka badan ay ku dhimatay waxaan ku matalaynay kuwa habeen kasta la dilo waxaan ku matalaynay kuwa ganacsatada ee inta loogu soo galo baqaaradooda la dilayo waxaan ku matalaynay maamul goboleedyada la culaadiyey ee weerarka iyo kala qaybinta lagu sameeyey waxaan ku matalaynay Soomaaliland oo la yiri deeqaha laga jiro waxaan ku matalaynay cid kastoo Soomaaliyeed oo ku dhiban xukunka madaxweyne farmaajo hoostiisa qof kastoo ku dhiban ayaan ku matalaynay mooshinkii iyo soo jeedintii ahayd madaxweyne xilka ma sii wadi kartid waa kaaga turaynaa laguma necba hawlo badan oo adiga laftaada ku yaallaa jiro oo aad wadan jirtay madaxweyne halkaan noo dhig waa sii wadanaynaa dad baa sii wadaya adigu iska bax iska laabo intaasay aad wixii shalaan geynay wax kale ma ahayn hal arrin keliya rabaa inaan ku daro waagii hore qofkii dalka lagu cabiriyo xaggee buu aadi jiray wuxuu aadi jiray waddamada dariska Itoobiya hadda madaxweynihii baa Itoobiya aaday madaxweynihii ayaa Itoobiya naga aaday inta dadkiisii ka carooday nancin waayey wuxuu sheegi waayey ayuu yiri ciidamada Eritrea iyo Itoobiya dalka ay qabanaya heshiisyo noocaas dalkaana ciidan haddii lagu qabsan karo 40,000 baa UNISOM 92 iyo 93 timid 50,000 ku dhawaad baa Itoobiyaan keeneen halkan ayuu kaarayaashoodii wada kuwa ka horeeyo ciidamada way jiraan laakiin Soomaali bay ahaayeen ciidamo ajnabiya ninkii dadkiisa u soo wata ama kuwa dalkiisa yiraahda dadka ii caburiya ninkaas mugdi buu gudayaa waa nin khabar mooga wuxuu u baahan yahay in far waaweyn wax loogu qoro oo la yiraahdo dadna lama caburin karo qorina waxba tari maye waxaad u soo baxdaa waxa isku difaacdaa madaxweynuhu waa inuu isku difaacaa akhyaarta hadda igu horeysay yiraahdo xildhibaanada waa inuu isku difaacaa sharciga hortiisa laakiin barakace مسكين هو لسوكعي أما قاق ليال فيسبوك انت اللي فريسي يليري إيدها أما عبورين وما أنت وحي عيربورك أنكو أركيني يمد هذا قدومي على شيء وحاس ونمي ويل يرو قاق لاحن مالنا وتوحى أركي وعيربورك اللي هو رجنا ني وزير سودوي نندانو هكامية وحزب لنا السياسي وزير سونغلي اللي ما سونغلي madaxweyne u tartamay ayaa maanta albaabka laga xidhay wiil qaaqlaana waa la soo dhaweynaya waxaas ilaahay hortiisa xaq miya waxa aan rabno shacab iyo xildhibaanaba inay isku bahaystaan waxaa weeye dalkan waddo qaldan oo qardajeexi uu qaaday
waddadii saxda ahayd annagoo dhan bay mas-uuliyadduna saaranta inaan ku soo wada dugno xisbiga wadajir taageerayaashiisa iyo xubnihiisa iyo hoggaankiisana waxaan uga mahad celinaynaa maantoy adkayd in laysku soo baxo oo waddooyinkii la xiray maantoy adkayd maaragtay wixii shala dhacay iyo wixii xala dhacayay in maantay dad intaan leega isku soo baxaan inay muujiyeen xayndaabkii inay ka soo gudbeen xorriyadduna halkaanay ka bilaabanaysaaba middaanaaba xorriyadda iyo dimuqraadiyadda bilowgeeda waa mahadsantihiin waxaan rabnaa jidadka in lagu socdo xisbiyadaan oo dhan kollay shirar bay geli doonaan jidkaas inaan dareenkeenna ku muujinno annagoo wada jirna oo xorriyaddeenna dimuqraadiyaddii dalkan madaxweynaha cod baa lagu doortay qori kuma haysan karo cod baa lagu doortay barakaca kuma haysan karo cod baa lagu doortay ciyaal qaaqlayaala kuma haysan karo sharci buu ku haysan karaa sharcigaa la rabaa inuu isku difaaco waxaan rabnaa inaan jidadka ku muujinno shucuurkeenna iyo dareenkeenna tagno daljirka daasoon oo maanta barakacyaal la geeyey inaan annagoo barakacyaal ahayn oo guryaheennii ka soo kacnay inaan halkaas tagno ayaa noo ballana waa maasantii xildhibaanada federaalka baarlamaanka maanta wixii ka dambeeya waxay noo ballan qaadeen inay shacabkooda la hadlaan ay u sheegaan go'aan kastay qaateen ay la xiriiriyaan wax walba ay meesha keeneen shacabkooda loo gardhigto madaxweynaha jamhuuriyadda asagana waxaan leenahay guryaha isku xidhaysa iska daa shacabkaaga u imow waa kana halkan ay ka maxaa la yidhaahdaa diidan yihiin inaad maxalliga dal kale u cararto dal shisheeye inaad u cararto waa diidan yihiin haddana halkan waxaan ku soo dhawaynaynaa maantay waxaan sugaynay ilaa iyo hadda kelmaddii hogaamiyaha laakiin waxaan rabaa kelmadda dhaqanka oo odayaashii geed fadhiga ahaa ee dalka iyo dowladnimada soo dhisay inaan ku horumara kadibna uu soo dhaweeyo hogaamiyaha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta aniga dowladda Soomaaliya bishii raxmad cabsiga ka jirtay waxaan rabaa anaga mooshin shacab aan wadaa anigu mooshin shacabku farmaajo mooshin uga wadaa haddaad lacag ka qaadan doontiin hadda ninkaas ka daayay ninkaa dalka laga qabto dalku wuxuu qarka u saaray inuu waxbad bilowdaa u saartaa shacabkii dhan wax walba oo dowladnimo waa weyne wax walba oo dowladnimo waa weyne shacabku wax walba oo dowladnimo waa waaye bara la isku sawiro iyo dal la caburiyo iyo dad la laayo waa lagu duugo annaga ma ana arki jiray dowladda taangeelada ka diidnay iyo diyaarada waa ka diidnay ma ka aqbalayno nimanka shisheeyo waardiyayaan inay dadkana laayaan oo boorsooyin ka mido baasaboorada islaamiyada ma aqbalayno wallahi xabaan ku bilaabayna shacabka ku bilaabay mooshinaan ka wadna ma aqbalayno waxaan halkaan u imid waa inaan alaga jeediyo xildhibaanada waxaan ka rabaa ninka dhinac nooga riixdaan ra'iisul wasaaraha raacina dowladda dhistaan ka rabnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh موشنكي شعبك مصري حدان موشنكي شعبك مصري حدان إلا موشنكي وحواي شعبك عايز يسيح halkaana waxaan ku soo dhaweynayaa waxaa jira hogaamiye ayaa hadda khudbadiisa jeedinaya laakiin kadib barbaarta gaashaaman ayaa nooga dambay doonta dhaantadii ayaa nooga dambay doonta waxaan rabnaa inaan hogaamiyaha soo dhaweyno hogaamiyaha la soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم aad ayaan marka hore ugu mahadcelinayaa saacadaha dheer ee tirada badan ee maanta qoraxda fadhiseen cadceedda iyadoo aad u kulushahay aad iyo aad aan runtii ugu mahadcelinaya iyadoo cidina soo qasabtay ama cidina soo laaluushay aysan jirin waa rabitaankiina halkaan ku timaadeen aad iyo aadaan kaga mahadcelinaya waxaan kala u mahadcelinayaa xildhibaanada iyo xisbiyada kala duwan matalaya ee sharafta leh ee ayagana qoraxda nala joogay ee laboorka lagu xayiray ee lagu xanibay ee laga xirtay ee ilaa hadda nala socdana aad iyo aad ugu mahadcelinaya xildhibaan waa maasantihiin maanta waxaa ku soo noqday muqdisho ayagoo madaxweynihi oo wadaysan yahay waxaan leeyahay madaxweynaha adigaa i soo weeraray
وأمر كبحي كوينا يقصوا ورثو ويلشي أسكتها يقلعي كباها كواسي محكمة إسلتقني شرعيا كوكلا بحني وحاربا مدحوينه فرينتك ولا ديرها وحيتها هذيك اللي بانada waxay sharci ku kala baxa waa fariinta koowaad fariinta labaad waxaan rabaa inaan reer muqdisho u diro maanta waxaan rabnaa reer muqdisho hadana inaan ilaahno waa markii ugu dambeysay soo inuu badhiigi waa markii ugu horeysay maanta waxaan leenahay waa markii ugu dambeysay oo jidadkeena ka xigto waa markii ugu dambeysay oo cashuurteena la dhaco waa markii ugu dambeysay oo qoray oo taliyo waa markii ugu dambeysay oo dadka la caburiyo طلع عبوري كلمتين أنا يا قانو عبوري صاروا جدًا وقت حب بدنا كتير وقت هنجلي كلام بدنا كتير أنت عبوري كتامرها وعند الصحافة يورفد إساء أخليكي وهلا يبان صحافة وعبوري كشغلة وأنا كحل بنيو عبوري كشغلة وعلى سوء عبورينا يصح أنت كشغلة كأنتي كأمي صوم لسمع عبوري كرو كل كل يا سوء عبوري لكن تعالى وحاولنا هاي الحيوانات الطاقة شربتها وشكا يكمل العيلة فرماجة وحصة ما لنا وحدوين فالجناب حوجي وصامالي ما هي ما أنت وراكي جبتية لقصة لو يصوى شربتها وضمتي سيدي عجوبة ويصور إليه أسكتها عيلة كحوك الدرك الصومالية أيو لاي وح صومالي ما معها ولا ليه نكتبوتي أيو كدور بني إنه كاس بنيو أو رتق على موسى الدور صومالي ما أرجو وعليه صومالي معاولة على جرو صومالي ما أرجو وح صومالي دماغ الغلا وكويني مركي ورانا وحضر شاقي إنه صومالي أصعده لكن أنه علينا الغلع ويني وح صومالي وكويني هديتها إمام الجولات هديتها صوماليلاند هديتها جيبوتي هديتها أوغلاند صومالي كلبه ملأت صومالي كنت تشوال لا يا ملأوين كان جرائد وحن تاقيتنا هاي وأنا حسبي ولدين وشيكا يسوي جديين اللي وانا ينتاقيتنا هاي وأنا تاقيتنا عارفنا ريتك بشوف إيش هو تحرير سكوير قرن هو هاي وتحرير سكوير وماشي مقدشة لقى حرينا ما كلية إنت ولدها اللي قرن كذا هي قاعدة هي قب كذا قحول بعيد كذا لقى حرينا يا معها وعلى لقى حرينا يا داعش وعلى نقول باقي كان أحسن لها وجن دومانيسا عراريسا داعش بعد سينيسا oo shabaab baad siinaysa oo bariile baad siinaysa inay iska dhaafaan ee banaanka u soo baxaan oo dadkooda taageeraan oo is xoreeyaan oo dhiigii dadnimo isku yeelaan ma aha inay hoteelada ku dhuuntaan ayagoo hantidii dadka iyo ganacsigii bamashirkii haysta waa inay is xoreeyaan dad iska dhigaan xildhibaanada saasaan ugu baaqaynaa intooda harsanaysan dareertada rabta inay soo baxaan waxaan rabnaa inaan ku dirirno dirirtaas laakiin waa mid nabadgelya waxaa la yidhahdaa civil resistance yaa la yidhahdaa waa muqaawama madaniya waxaan muqaawameynaynaa si nabadgelyo leh oo dimuqraadiyo leh waa u dhimanaynaa horena u soo samaynay dictatorna waa u diidnay reer muqdisho haddaad tihiin waxaan rabnaa inaan isku raacno waa markii ugu dambaysay maamul la'aan muqdisho ay noqoto muqdisho waa inay heshaa canshuurteeda maamul ku matala ee madaxdeeda la xisaabtama ما يالي كرنو إلى 6 مليون مثلا الآن نقطه وأنا ببتي مقدشة وأنا ترى وأمريكا قدام بيسي أو مثلا الآن نقطة مقدشة وأمريكا قدام بيسي هو يوم جيت كل الآن جيت كإيديك فركرة إيديك حرة حرنما كل رتين ضد حرة هدين ولينا حرة هدين عندنا قدام بيسي كتان أمريكا تأثر علينا الدور راعينا وحركتان وأثير ستين دور شريك وحاسة على بوتلا بدعوينا كاس وشرحين ترى ترتمى مالهم فقاري يستاقان وين دليلان وين عيبيان حقوق يكربان خلا من حبتكم مريض أصلا حبتكم كلها مالكتين مدحوين السيلايو محرم مسبيحي ذاتك لا ترتمى أما حسبينا معارضك فقاري ياشي يتاقان ودليلان وعنباريان أصلا حبتكم كلها مالكتين مدحوين فرماجو وين وحشونا هدول دياس برجلي
oo isla socodin anaga u sheegayno xaafadda la isku ridaayo iyo qori la soo qaadanayo waa ayaan daro in la yidhaha guddoomiyihii baarlamaanka ayaa gurigiisii hareeraysan yahay wax la yeeli kara ma aha walaa madaxweynaha wuxuu is yidhi jawaariya hore u tanaasulay cabdiraxmaan cashukuraa tanaasulay tanaasulkoo daciifnimo u qaatay waa taasna waa nacasnimo ninka tanaasulka nacasnimo u qaatay daciifnimo waa nacasnimo ninka u qaatay daciifnimo taas tanaasuli mayno xaqeennaan ku taaganahay guddoomiyaha baarlamaanka waxaan leenahay xaqaada ku taagnaaw sharciga ku soco dadkaana ku dhanac taagan ma aha kuwa lacag lagu soo bixiyey ma aha kuwa la soo dheerimiyey waa dad xor ah weligood ay xor ahaayeen waana noqon doonaan reer muqdishoa la yidhaahdaa 30 kun oo Etoobiyaan halkan ka fideen Maraykanka xoog ku qabsan waayey Etoobiya xoog ku qabsan waysay kaliya laakiin dowladda maaha si wada jiraan rabnaa inaan argagixisada iskaga celin waa iska celin karnaa nagama adko argagixiso waa iska celin karnaa waa inaan shabaab iyo daacish meel uga soo wada jeesanaa ma yeeli karno wiilal yaryaroo meelay ka yimaadeen aan la aqoonin inay dhahaan ganacsatada waa baadayna lacagana siiyaan ayagana ay hagoogtaan oo guryaha isku xilaan wax la yeeli kara maaha waa nacasnimo waa dadnimo xumo waa diin xumo waa islaamnimo xumo intaba aad iyo aadan ku mahadcelinayaa sida sharafta iyo karaamada leh ood ii soo dhawayseen oon meeshaan ugu soo noqday halkankeenna waa meeshaan ka bilaabaynay xorriyadoonka ah xorriyadirirka ah soomaali raadinteeda ah dadnimada iyo dowladnimada raadinta ah waxaan ku faraxsanahay in baran qalbidhagax jigjiga lagu soo dhaweeyey oo farmaajo gacanta cadagu geliyey maanta anigii soo warana fagaarahan dhex taaganahay oo dadkaygii soo dhaweeyeen oo hornahay حريتها تنبينيسا حقا بوليسا دونا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل إلهي وحيرين كان سهوقا باطل واسوليا فربك أنت من المتنيسو وعلى إلى هذا ويلي يرسل الشيخ لما فقي الشيخ تلفزيون اليوم وبسجيله بحانت الانترنت على وحمله ودعينا دفع هرمار لا حلب وعقبت وشاك أبو مني Soomaaliya waa ka weyn tahay xilli wax sheegay wax sax la saaray waa ka weyn tahay Soomaaliya lama dhuumi karo Soomaaliya lama qari karo Soomaaliya lama loogi karo Soomaaliya sidad la siiyay laga dhigi karo waxaan rabnaa inaan taas u wada joogsano qoraxda daraadeed iyo waqti badan oo joogto waan soo gaadinaya khudbadayda aad iyo aad u mahadsantiin xildhibaanada sharafta waa mahadsantiin assalaamu calaykum ciidanka gaashan kamar
لا إله